daawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda raadiyo baraarug media iyo qaybaheeda kale ee shabakadaha oo ka geli kartaan gobolka saaxiibayaal ahilaawina inaad ku dhufataan subscribe oo si la gareysaan oo la wadaagtaan saaxiibadiina kale. maxkamadda gobolka Maroodijeex haddii ay sii daysay saaka Cabdimaalik Muuse Coldoon maxaa keenay in jeelka lagu sii hayo ee magaalada Hargeysa. fanaanka caanka ah ee Idlayare ayaa ka hadlay nolol aad u xun oo ku soo koray wadda Soomaaliya ayaa ka hadashay shirka midowga Afrika oo ka furmaya caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. banka dalka Turkiga ayaa maanta meel mariyay mooshin ay ku qaadayeen cod in ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya loo kordhiyo joogitaankooda. ilaalinta Somaliland ayaa fashilisay go'aan xukun maxkamadda gobolka Maroodijeex ku dhawaaqday isla markaana markii ay maanta maxkamadda gobolka Maroodijeex ee magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. waxa xukunkaas ku gacan sayray xeer ilaalinta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. xeer ilaalinta ayaa rafcaan ka qaadatay go'aan ay maanta maxkamaddu ka gaadhay eedeynta uu u xidhnaa wariye Coldoon kaas oo xabsiga ku sii jiri doona tan iyo inta go'aan laga gaadhayo rafcaanka xeer ilaalinta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay ka qaadatay. booliska Soomaaliland ayaa xidhay bishii August ee sanadkii aanu soo dhaafnay. maxaa ka mid ah dacwadaha lagu soo oogay wariye Coldoon sida ku xusan warqadda xeer ilaalinta maamulka Muuse Biixi Cabdimaalik waxaa loo haystaa dhowr eedeymood. Cabdimaalik waxaa loo haystaa dhowr eedeymood waxaa ka mid ah eedeymaha lagu soo eedeeyay in uu bartiisa Facebookiisa uu ku faafiyay warar dacaayad ah iyo been abuur oo ka dhan ah iskuulka Abaarsa iyo jaamacadda Barwaaqo ee ku yaala magaalada Hargeysa ee Somaliland. qodobada kale ee lagu soo oogay Cabdimaalik ayaa sidoo kale ahaa in dacwadda qaran dumis ah oo uu fidiyay. dacwadaha kale ee lagu soo oogay Cabdimaalik in uu cambaareeyay ummadda Soomaaliland iyo qarannimadeeda. dacwadda ay ku soo oogtay xeer ilaalinta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ka mid ahaa qodobadaas wariye Coldoon ku dhacday ma sharci darra. qareenkii u doodayay Cabdimaalik Muuse Coldoon Jamaal Mandela ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay kiiska ku guuleysteen. waxaana hadalkiisa ka mid ahaa aad ayaan ugu faraxsanahay in aanu dacwadaasi ku guuleysano, balse waxaa ka xunnahay in uu weli xabsiga ku sii jiro iyada oo maxkamadda ay amartay in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo wariye Coldoon ayuu qareenku ku dooday. wuxuu intaa ku daray oo sii raaciyay hadalkiisii sidan: waxaan ka xunnahay iyada oo uu sharciga dhigayo in marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo in uu albaabka ka baxo in xafiis xeer ilaalinta markiiba ay rafcaan qaadato oo ku dhawaaqay in ay rafcaan qaateen isla markaana uusan xorriyadiisii uusan weli wada helin. Cabdimaalik oo weli uu sii xidhan yahay kuna jira xabsiga. sharciyan waa arrin gef ah, sharcigana wuu mamnuucay. waxa uu sharciga dhigaya in qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayo markiiba uu albaabka ka baxo ayuu yidhi. hobolka ama fanaanka Soomaaliga ah ee Cabdiraxmaan Cabdilaahi Nuune oo loo yaqaano Idlayare ayaa sheegay inuu nolosha ka soo bilaabay meel aad u hooseysa isla markaana waxa uu ka hadlay qaabka uu ku soo barbaaray ee degmada Madiina ee gobolka Banaadir ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. hooyadiis oo ahayd qof kaliya ee nolosha qoyskoodu ku tiirsanayd ayaa ka shaqayn jirtay iskuul la yiraahdo Baarbe kaasoo ay ku gadi jirtay shaaha iyo waxyaha ay ardaydu cunaan marka ay u soo baxaan nus saacaha iskuulka ka soo baxaan. Idlayare ayaa sheegay inuusan isaga weligii wax baran waqtigii uu yaraa uu caawin jiray hooyadii maadaama ay keligii uu ahaa wiilka qoyska. fanaanka Idlayare ayaa ka soo jeeda qoys danyar ah kuwaas oo la daala dhacay qutul daruuriga qoyska ee noloshooda ee maalinlaha ah. waxaad wax baran kartaa markii la darbi karo nolosha lana gedi karo buugta iyo dharka iskuulka. hooyo ayaana biilinaysay. aabe wuu xanuunsanaa wuxuuna ka tirsanaan jiray dowladdii hore ee Soomaaliya ayuu yidhi Idlayare. fanaanka Idlayare waxa ku soo barbaaray nolol adag ayaa markii ay hooyadiis geeriyootay uu tafaxaytay inuu qoyskiisa ka faalo qaado noloshooda isaga oo
hardanka nolosha ka bilaabay inuu aado magaalada Boosaaso ee Puntland intii uu ku jiray socdaalkiisa uu ka bilaabay magaalada Muqdisho ayaa intii uusan gaarin Boosaaso waxa uu shaqo ka sii bilaabay magaalada Gaalkacyo markii ay dhimatay waxaan go'aansaday in aan nolosha wax ka bedelo aabahay ayaa dhabarka iga dharbaaxay oo dadkaaga alle ha kaaga dhigo aabba iyo hooye laakiin markii aan Gaalkacyo gaaray waxaan bilaabay shaqo inaan raadiyo ayuu yidhi intii uu shaqada raadinayay waxa uu maqaaxi ku taala magaalada Gaalkacyo ka bilaabay shaqo heer hoose ah isaga oo ka noqday shaqaalaha nadaafadda markiiba biito ayuu shaqo ka helay taasi oo uu sheegay in uu ka qaadanayay lacag yar safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Jaamil Kajiir ayaa sheegay inuu aad ugu rajo weyn yahay in Soomaaliya loo doorto xubin ka tirsan golaha ammaanka ee nabadgelyada midowga Afrika safiirka Soomaaliya Kajiir oo la hadlay warbaahinta dawladda isagoo ka qayb galaya shirka midowga Afrika ee ka socda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay dalbatay in 3 sano ee soo socota ka mid noqoto amniga midowga Afrika doorashada xubnaha golaha ammaanka ayaa dhacaysa galabta ilaa caawa safiirku waxa uu sheegay in uu kalsooni ku qabo dadaalada ay Soomaaliya ugu jirto ka mid noqoshada guddiga midowga Afrika ee nabadda iyo ammaanka midowga Afrika ee ka dhacaya caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa la sheegay in laga hadli doono saameynta cudurka COVID-19 iyo amni xumada ee qaaradda Afrika ee ka mid tahay dalka Itoobiya oo xilligan ay ka socdaan waqooyigeeda dalka Itoobiya kasaba ahaatee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo muddooyinkii u dambeeyay ay wafdiyo kala duwan ay soo gaadheen halka baarlamaanka dalka UK ay ka doodeen in ay Somaliland hesho ictiraaf ayaa xilligan waxa la isweydiinayaa ama sida ay dadka xeeldheerayaasha ee arrimaha siyaasadda geeska Afrika sida weyn ula socda waxa ay iftiiminayaan qaabka xukuumadda hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi ay doorka ay ku yeelato shirka midowga Afrika ee xilligan ka furmaya magaalada caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa isla markaana waxa ay sheegeen in waqti xaadirkan xukuumadda hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi la gudboon tahay in ay dadaal weyn ka gasho sidii qayb uga noqon lahayd ama ay saameyn ugu yeelan lahayd shirka midowga Afrika ee xilligan hadda ka furmaya magaalada caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa baarlamaanka dalka Turkiga ayaa maanta meel mariyay mooshin oo galaanaya in ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya loo kordhiyo joogitaanka ilaa 10 February 2023 ansixinta ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada Turkiga uu tababaro lagu dhaliilay in ay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo uu arrimo siyaasadeed u adeegsaday ciidanka dawladda Turkiga u tababartay Soomaaliya 14aad ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga ay kordhiso joogitaanka guud ahaan ciidamada gacanka cadmeed tan iyo markii lagu horeysay ee uu ansixiyay baarlamaanka dalkaasi sanadkii 2008 madaxtooyada dalka Turkiga ayaa ka codsatay baarlamaanka dalkaas muddo kordhinta ciidamada Turkiga ee ku sugan gacanka cadmeed ee badda iyo xeebaha Soomaaliya howlgalka ciidamada Turkiga ayaa ku eekaa ilaa February 2022 dalka Turkiga ayaa ka mid ah dalalka ciidamo ka jooga gacanka cadmeed oo u dhow marin biyoodka Babel Mandeb oo ah meesha afraad ee adduunku ugu weyn ee marin saliida waana marin tamar istiraatiiji ah oo loo maro saliida ceydin ee bariga dhexe saaxiibayaal waxaan uga codsanaynaa inaad ku dhufataan subscribe-ka